qaar ka mid ah dhalinyarada haweenka ka soo jeeda gobolka Togdheer oo habeenkii xalay kulan warbaahineed ku yeeshay magaalada Burco ayaa waxay taageero ballaaran u muujiyeen siyaasi Maxamuud Xaashi Cabdi sidoo kalena waxay dhalinyarada iyo haweenkani ganafka ku dhufteen go'aankii xisbiga kulmiye siyaasi Maxamuud Xaashi kaga saaray xisbiga waa kuwan dhalinyarada haweenka arrimahaasi ka hadlaya maalinta xisbiga kulmiye la aasaasay doorashada ilaa maalinka maanta xisbintii la dooranayay codkayga wallahi xisbi kala ma siin kulmiyanaha maanta la ballan waxaan ku qaadayaa inaan Maxamuud Xaashi ugu hibeeyo fartayda oo aan ugu hiiliyo Maxamuud Xaashi godku galaba inaanu garabkiisa nahay oo ka daba galayno haddaan nahay haweenka iyo dhalinyarada gobolka Togdheer Maxamuud Xaashi Cabdi waxaan u muujinaynaa haddaan nahay gobolada Saaxil Togdheer Sool iyo Sanaag taageerada aad u balaanan Maxamuud Xaashi waxaan leenahay soo dhawow uma qarantid in la yiraahdo xisbiga kulmiye waa laga casilay halka doontid baanu taageerada kula dhinac taaganahay Maxamuud Xaashi Cabdi waxa weeyaan nin yaqaana waxa weeyaan in la soo jabo siyaasadda bisayl u leh waaye badan ku soo dhex jiray wuxuu ka soo bilaabay maayir dhoqoshay buu ka bilaabay maayirkii Burco noqday wuxuu noqday 15 sano oo ahaa xildhibaan baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland wasaaradda duulista hawada wuxuu soo maray wasaaradda madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo madaxweyne Siilaanyo waxa waxaan ahay nin jiitay oo soo joogay waayelay joohorada reer Shiikhiya gaanka war jeclaan horta marka hore Maxamuud Xaashi Cabdi nin la ciili kara ma waa nin beesha war jeclaan ka dhashay xaqiiqiyan ninka la Muuse Biixi Cabdi xusbi dhamaystiran tibaa lagu wareejiyay kursigu ku fuulay maalintii uu kursiga ku fuulay BB Wall ayuu subaxdii ugu horeysay 148 nin buu ka dareeriyay wasaaradii Maxamuud Xaashi Cabdi uu soo maray duulistii hawada iyo wasaaradii madaxtooyadana wuxuu yiri laba wasaaradood jira ma aha wuxuu kala sameeyay haamihii shidaalka ee ay ganacsatada beesha war jeclaan ay maal gashatay markiiba uu la wareegay diyaaradihii saraakiishu iska xidhay yaaniga si waadax uu reerka u ugaar Muuse fartaynu ku soo saaray fartaynu ku ridaynaa Maxamuud Xaashi waxaan leeyahay Maxamuud oo boqolka roone hankiya biligaaga taagan haddii laga wada baqaylay libtaadiya baaxadaadu annaga waa noo bishaaro siyaasadda baawarkeeda bilada adiga ku qaatay sidii qorraxda barqaa bayaan adiga u muuqda adaan qofna ku baqayn cidina kula baratameynin taageerada Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa caaw halka ina keentay rag iyo dumar waxa weeye maanta reerka magaca sheeganaya ama way muuqan doonaan ama way maqnaan doonaan kursi aanu si xaadnay oo u si qodshilin iyo qodax tirnay baanu Muuse ku fadhiisina waxa yiri nina dhuunu kugu dhaadhacay nina dhaqasho kugu dhabar jabay Muuse wuxuu yiri bari dalbayga xigay dadbayga ma xigay ma tusnaa dadka bari ka xiga Muuse aynu farta ugu tilmaano ninkii tol yar baa tawaawacay man taaganay laakiin ma tawaawacayo Maxamuud Xaashina mid baan leeyahay bin horaad uga tagtay nin rago wax arkaya weeye horuu arkay markuu arkay dawladda halkay marayso buu ka tagay marka waxaan leenahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi isagoo ka hadlay shidaalarkii maysid isagoo maciishada maanta kacday ee waxa weeyaan raashinkii kacay wuxuu ka hadlayaa sidee baan waxa weeyaan hebel iyo hebel aan u ridaa aan u casilaa marka waxaan leenahay Maxamuud Xaashi waa kii markii horena soo saaray maantana inaga soo saaray ma midowna yaanu codaynayna yaanu soo saaraynaa maanta way guulaysanayeen Maxamuud Xaashi soo saarno waxaan leenahay siyaasiga weyn siyaasi Maxamuud Xaashi Cabdina soo dhaw baan leenahay haddaan nahay bahda dhalinyarada iyo bahda haweenka iyo bahda waxaan ku soo dhaweynaynaa ama gobolka Togdheer Shaakir Cabdiraxmaan Axmed telefishinka Saab Burco